musharax ka mid ah musharaxiinta xisbiga wicida ayaa sheegay maanta inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa isla markaana uu tanaasulay musharax kale oo lagu magacaabo jaamac shukri biixi oo ka sharaxan urur siyaasadeedka ummadda gaar ahaan degmada Burco waxaana kulan ballaaran oo loo sameeyay isu tanaasulka labadan musharax ka soo qayb galay cuqaal waxgarad aqoon-yahano iyo waliba dhalinyaro waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay oday Axmed Gaariyo oo ka mid ah waxgaradka beesha ay ka soo jeedaan labadan musharax isu tanaasulay taasi oo ku tilmaamay in talaabadan ay tahay mid ku dayasho mudan xafladan aynu qabanay waxaynu isugu nimi isu tanaasul ay laba nin oo musharax ahaan jiray midna uu musharax ahaa oo uu tanaasulay midna hadda uu musharax yahay oo isku beel ka soo jeeda ay isu tanaasuleen yaa isu keentay sababtaasaynu caawa isugu nimi waana waxyaabo loo baahan yahay marka la eego dadku maxaan ku dhahdaayay burburka ku dhacay siday u qaybsameen iyo in la isu caqli celiyo oo ay maxaan ku dhahay isu tanaasulaan wixii maxaan ku dhahdaayay isku beel ka soo jeeda Khadar Cali Cabdullaahi oo isagoo ah musharaxa tanaasulay ayaa sheegay inuu tanaasulay musharaxan lagu magacaabo Jaamac Shukri Biixi ee ka sharaxan urur siyaasadeedka ummadda isla markaana taageeradiisii iyo abaabulkiisii uu la garab taagnaan doono musharaxan Jaamac Shukri Biixi salaam baadi anigoo Khadar Cali Cabdullaahi waxaan u tanaasulay oon ku wareejinayaa taageerayaashaydii Jaamac Shukri Biixi oo garabkayga fadhiya taageerayaashaydana intay maqlaysay inta kaleba waxaan u sheegayaa maanta laga bilaabo in codkii ay isla berber taagisaan Jaamac kuwii wacsan ee beesha ka wacsan waxaan leeyahay sidoo kale Jaamac u tanaasula codkiina siiya isgarab taaga geestiisana musharaxa loo tanaasulay Jaamac Shukri Biixi oo halkaas ereyo kooban ka soo jeediyay ayaa u mahad celiyay Khadar Cali Cabdullaahi isagoo dhinaca kalena ku dheeraaday himiladiisa fog iyo xilligani taageerada ballaaran ee uu ku haysto urur siyaasadeedka ummadda isla markaana uu uga qayb galayo tartanka doorashada golaha deegaanka ee dhici doona bishan 28keeda taaynu caawa halkan u joognaana waxa weeye sidii loo noqon lahaa mid kaliya adeerkay ama adeerkay Khadar Cali Cabdullaahi uu maanta aniga taageerayaashiisii iyo isaguba ay ugu soo biireen aanu ii tanaasulay anigoo ah musharaxa magaciisa leeyahay Jaamac Shukri Biixi waxa kale iyaguna kulankaasi ka hadlay aqal baasha iyo waxgarad kale kuwaas oo dhamaantoodba ku tilmaamay isu tanaasulka xilligan yimi inuu yahay mid ku haboon isla markaana dan u ahaa beesha ay musharaxiintani ka soo jeedeen waxaan aad ugu mahadnaqaynaa labada musharax ee dhalinyarada ah ee fakarkoodu siiyay in tacabkii reerkooda iyo ururkii maxay tahay codkii reerkoodu aanu khasaaroobin ee ay meel isugu wada biiriyaan baan runtii aad ugu mahadnaqaynaa taageerayaasha ururka ama xubnaha guddida ururka sida ay labada musharax ee reerka isugu tanaasuleen ururka ummadda ay maanta ugu soo wada biireen waxaan anna Khadar Cali Cabdullaahi ku soo dhaweynayaa gacmo furan waa Maxamed Cawad Maxamed shabakada caalamiga oo Wadweyne News Burco.